asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulan wanaagsan saaxiibayaal, meel kasta aad joogtaan daafaha iyo dacalada caalamka soo dhawaada. waa mar kale iyo barnaamijyadeennii kala duwanaa aanu kaga hadli jirnay xaaladaha kala duwan iyo dhacdooyinka maalinlaha ee ka dhaca guud ahaan dalka Jarmalka iyo qaaradda Yurub. maanta waxaan barnaamijkana kusoo qaadan doonaa dhowr qodob oo ay ka mid yihiin meel hilibka lagu qalo oo laga helay tiro gaadhaysa ilaa 400 oo qof xanuunka coronavirus kadibna halkaasina lagu xuday iskuuladii iyo kindergartenadiiba ayaanu warkeena kusoo qaadan doonaa meesha ay tahay iyo gobolka iyo magaalada ay tahay. sidoo kale waxaan eegi doonaa shirkadii Crufag aanu hore uga hadalay ee xanuunka coronavirus dawadiisa soo saaraysay, dowladuna lacagtiisay ayaa bilaabaysa inay markii ugu horreysay ku tijaabiso bini'aadan tallaalkii ay soo saartay. sidoo kale liiga ingiriiska oo furmay. sidoo kale waxaan eegaynaa mawduucyo ku saabsan barashada luuqadda Jarmalka iyo su-aalaha hore noo soo weydiiseen oo aanu ka daalin qaabkaan idinku raadin lahayn systemkii iyo sidii aanu idinku samayn lahayn korasyo luuqadda af Jarmalka aad ku baran kartaan idinkoo guryihiina jooga. insha allah mawduucaas oo faahfaahsan ayaan barnaamijkeena ku falanqeyn doonaa. sidoo kale dhanka su-aalihii oo aanu eegi doono, weliba ay ugu badan yihiin dhanka dadkii la celinayay oo su-aalo badan laga keenay, islamarkaasna aan doonaya inaan si faahfaahsan maanta idinku sharaxo si aydan su-aalo badan u keenin. dadka xumaanta jecel ee inta badan hadallada bedbedela ee dadka hadaladooda waxyaabaha kale kasoo saarana aan ugu quusgeyno oo aan runta u sheegno, islamarkaasina waxaa soomaalida odhan jirtay waxaa sheegtaba ha weydiye waa lagu shareeraa. marka waxaa sheegtaba ha weydiye markaasaanu waxa laala waxaa su-aal qabtaan insha allah idinka jawaabi doonaa. mawduucyadaas iyo mawduucyo kale ayaanu barnaamijkeena maanta kusoo qaadan doonaa. mar kale soo dhawaada, nagu soo biira, kana mid noqda saaxiibada nagu xiran. haddii aad hore nooga mid ahaydeenna waad mahadsan tihiin. waa tahay aan wararkeena bilaabana insha allah. 400 oo qof oo xanuunka coronavirus laga helay 400 oo qof ayaa waxaa shaqaale ka shaqeeya goob hilibka lagu qalo oo ku taala gobolka North Rhine-Westphalia, magaalo la yiraahdo magaalada waxa Kreis la yiraahdo Gütersloh oo gobolkaasi ka tirsan ayaa magaalo Kreiskaasi ku taala laga helay 400 oo qof. shirkad ay ka shaqeynayeen 400 oo qof ayaa positive noqday, kadibna waxaa la xidhay goobihii iskuuladii. maanta ayay ahayd xaaladdu goortay dhacday, kadibna berri wixii ka bilaabma waxaa xidhnaan doona iskuulada iyo kindergartenada magaalada Gütersloh. haddii aad garanaysaan ama aad cid Soomaaliya degan tahay saas ay noqon doontaa. qodobka ku xiga warkeena insha allah Crufag oo la yiraahdo shirkad ka shaqeynaysay muddo badanna gacanta ku haysay soo saaridda tallaalka coronavirus ayaa waxa ay loo ogolaaday, islamarkaasina ay bilaabaysaa inay ku tijaabiso dadka tallaalkeeda. marka processka tijaabinta sidii shirkadii ka horreysay aan hore idinku sheegay bay tijaabinteeda hore u bilowday. dabcan kolley processya ayuu marayaa, muddo ayuu qaadan doonaa ilaa dhammaadka sanadka ayaa macquul inay tijaabadaas soo gabagabdo. marka marba shirkadda soo horsaarta ama siduu usoo baxo ayaynu eegi doonaa. wixii macluumaad ee kasoo baxana waan qaado insha allah isla eegi doonaa. sidoo kale warguud Premier League ciyaarihii Ingiriiska ayaa bilaabanaya maanta insha allah, iyadoo ciyaaro badan lagu ciyaari doono dalka Ingiriiska oo naadiyo badan oo waaweyn oo Arsenal iyo Manchester City ka mid yihiin. dhalinyarada ragga iyo dumarka leh ay daawada ciyaaraha xiiseeya lafteeda aniguba ka mid ahay ayaan ugu bashaareynaya. sidoo kale Bundesliga ciyaarihii liiga dalka Jarmalka ayaa kooxda Bayern Munchen markii 8aad ay ku guuleysatay 8 sano oo isku xigta laga soo bilaabo 13 ilaa 20. waa tahay waxaa inoo soo socda qodobka waxbarashada luuqadda Jarmalka, qaabkii aad isu diiwaangelin lahaydeen, qaabka systemkaas uu shaqeyn doono, akademiyada iyo kooxaha ka shaqeynaya ee macallimiinta idin noqon doona insha allah halkan waqtigooda idinku hori doona iyo qaabka aad isu diiwaangelin doontaan. macluumaad fara badan oo ku saabsan ayaan barnaamijkeena ku eegi doonaa. balse marka hore waxaan isku dayi doonaa dhanka su-aalahaadna soo weydiisano iyaga laftooda aan war ka dhicin, islamarkaasina barnaamij u baahan marka su-aalo lasoo hadal qaado. su-aalo ciddaa ka badan ayaad soo weydiiseen. waxaan isku dayi doonaa inaan su-aalahaasi sida ugu macquulsan idinka soo jawaabo. sidaad ogtihiin su-aalaha aad youtube-ka commentigiisa igu soo qortaan ayaan soo qaataa. haddii aad pageka Axmed Baqaya ama Somali News in Germany aad igu soo qortid waxaa laga yaabaa in
dad fara badan ay soo qoraan commentiyadooda ay bataan isla markaasina waqtigu kala duwanaado. Marka inta ugu badan waxaan isku dayaa maadaama su-aalaha halkan ku jira iyo su-aalaha kale ku jira isku mid yihiin, inaan marba su-aalahaas kusoo koobo 10kii su-aalada isku midaba aan hal su-aal kasoo dhigto mawduucaas uun ka hadlo insha allah. marka qofkii su-aashiisa ka waaya barnaamijkan hay ku soo qoray su-aashiisa ka dhex waayay isla markaasina su-aashiisa ay soo qoray, halkaas ayaa mar labaad uga soo jawaabi doonaa insha allah isla su-aashiisaas. waa tahay su-aasha koowaad, sharciga kumeel gaarka ah ee talyaaniga Jarmalka ma kaga shaqaysan karaa? horta Jarmalka waan aqaanaa sharciyo kala duwan ayuu leeyahay. dadka sharciyada u siiyana waa sharciyo kala darajo ah, kala mid kastaana hawl gaara qabto. talyaaniga laftiisa sida dad badan Spain lafteeda leh ayaan filayaa, oo su-aalihiina ay ku jirteen dad badan oo Spain iyo talyaaniga iga soo weydiinaya su-aalo leh sharciyada noocaas ama haysanaa Jarmalka kaga shaqaysan karnaa. isku soo wada duub, sharcigaa doontida hayso. sharcigaagu ma kuu ogol yahay inaad Yurub halkaa doontid kaga noolaatid? sharcigaagu ma kuu fasaxayaa inaad midowga Yurub haddii aad talyaani degan tahay, sharciga talyaanigaad haysataa ma ogol yahay? oo waxyaabaha uu ku ogol yahay ma ka mid tahay inaad midowga Yurub ka shaqaysan kartid? haddii su-aasha jawaabtaasi tahay haa, maxaa diiday? Jarmal waad iman kartaa. waxaad u baahan tahay inaad baasaboorkaaga soo qaadatid, aqoonsigaaga soo qaadatid, ogolaanshahaaga inaad Yurub ka shaqaysan kartid soo qaadatid, kadib magaaladaada shaqo ka heshid. shaqadii markaad heshid isla magaalada ayaad ka dalbanaysaa waraaqda ogolaanshaha shaqada. kadib haddii adaa shuruudaha buuxisid, waraaqda shaqada waa lagu siinayaa, halkaas ayaad ku shaqaysan karaysaa. dad fara badan ayaa jira oo Jarmalka ka shaqaysta oo talyaani ka yimi, inkastoo aan inta ugu badan ay u badan yihiin dad talyaaniya. laakiin haddaad qaxoonti tahay, sharciyadaada hadday ku ogolayn, taas kama jawaabi karo sababtaa ma ogeyna sharciyadaada ku ogol yihiin iyo in kale. marka hadday ku ogol yihiin waa arrin fiican, sida dadka talyaanigaad la mid tahay waad iman kartaa. Spain sidoo kale, wadamada kale ee Yurubta qof kasta wadan kala haysta sharci kala haysta, sharcigiisa hadduu ku yimaado aan qaxoontinimo isku dhiibin, sharcigiisuna ogol yahay inuu ku dhaqmo, ku noolaado, ka shaqaysto dalka Jarmalka, maxaa u diiday? uu shaqaysan karaa. waraaqda ogolaanshaha buu dalbanayaa iyo processkii kale ee qaababka cashuuraha iyo nambaradii cashuuraha ku bixinayay, kadibna toos ayuu halkaa ugu shaqaysan karaa. su-aasha labaad ee su-aal halkan kaasoo weydiin karaa bay ahayd. waa su-aal dad badan ay muuqaalka ugu dambeeyey iyo kan hadda aad daawanaysidba xagga hoose waxaa idiin soo dhigay linkiga Facebook pagekayga iyo Instagramkayga. labadaba halkaasaad igu soo qori kartaan su-aalihiina. haddii aadan linkiga u baahnayn inaad ku dhufataanna Instagram tag Ahmed Baqayo ku qor, magacan hadda YouTube-ka daawanaysa ku qoran, ama Facebooka tag Ahmed Baqayo ku qor, magaca qura Ahmed Baqayo kusoo baxay weeye, oo aan ku jiraan linkiyadii YouTube-kaygaas, muuqaaladeydii, sawiradeydii, wuxuu halkaas ka dhex helaysaa. pagku wuxuu leeyahay ilaa 9,020 like, weli wuu cusub yahay, laakiin insha allah waxaan rajeynayaa inaad igu kamid noqotaan dadka sii like gareeyo, dad badan sii gaarsiiyey, inkastuu YouTube-ka ka subscribe badan yahay, balse Instagram-kuna inta badan ma isticmaalo, dadka un baan kala xidhiidhaa, laakiin wax badan ma soo dhigo. isagana ilaa wax 1,000 ka yar ayuu leeyahay. waana halka laba Instagram kale Ahmed Baqayo lehda jira, cid leh ma garanayo, laakiin waxba ma dhex yaalaan. waa Instagram brand magaca qura ku qoran yahay. waa sida dadka magacyada beenbeenta ah ku qorta Facebook oo kale, YouTube oo kale waad ka helaysaa. Facebook weli kuma arag Ahmed Baqayo qof ugu qoran yahay, laakiin YouTube waan ku arkay mid Ahmed Baqayo kusoo qortay oo soo dhigdhiga. muhiim maaha, waxaad arkaysaa macluumaadka ku dhex jira iyo muuqaalada ku jira uun arka markasta, kadib markaas ayay garanaysaa inuu anigii yahay. marka Instagramkaad igu soo diri kartaan, Facebookaad igu soo diri kartaan, labadaba Ahmed Baqayo aad ku raadinaysaa magaca hadda halkan idinku qoran. su-aasha saddexaad, yaa la celinayaa? waa su-aalo badan oo isku soo noqnoqday oo kamid ah, ay ka mid yihiin ninkayga ayaa sharci kule talyaaniga, aan idhahda ninkayga ayaa fara talyaaniga kule, halkan buu joogaa, aniga iyo carruurtayda fara ma lihiin, halkan buu joognaa, markaa isaga ma la celinayaa. xaaskaygaa fara leh, hooyaan ahay carruur haysata, faraan leeyahay, carruur baan halkan ku dhalay, aabbaan ahay, carruur halkan baan ku dhalay, waxaan doon ma la celinayaa? su-aalahaas oo dhan isku soo wada duuduub, jawaabtoodu waxay noqonaysaa hal mid. dadka la celinayaa waa dadkii faraha lahaa talyaaniga ama wadamada kale Yurub ka yimi, qaxoontinimada dalbaday, la diiday, loona sheegay in la celinayo, kadib iyagoo celiskoodii og in la celinayo
qorshihii uu kasoo dhex galay coronavirus. Hore ayaan idinku sheegay xitaa gobolka Bayer isagoo dhowr boqol oo qof doonaya inuu dib u celiyo tarxiilo inuu corona kasoo dhex galay oo iminka doonaya inuu dib u celiyo. marka haddii markii hore kuu diyaartanaa celiskaagu ama aan haddaba diidmo lagu soo siiyo kadibna lagu sheegay in lagu celinayo waa lagu celinayaa maaha dadka noocaas la celinaya ma jirto. qofka maxkamad ayaa go-aan ka gaadhaysa celiskiisa. maxkamadaas marka go-aan kasoo gaadho go-aanka waad ogaanaysaa kadibna in lagu celinaya halkaasaad ku garanaysaa. marka waxaa la celinayaa qof kasta oo maxkamadi go-aan ka gaadho. su-aal kale iyadu lafteedu la socotay ahayd dadku si qaldan u yara fahmeen. waxaa yidhi qofka qareen haysta ama looyar leh waxba ha ka warwarin. sida qofka faraha leh diidmada la siiyey loo sheegay in la celinayo laakiin looyarka haysta muxuu kaga duwan yahay qofka kale. aan taa idin fahansiiyo. markaan leeyahay qofka looyarka haysta waxaan ka wadaa qof dacwadu u socoto. diidma la soo siiyey kadib dacwad buu ceshaday looyar buu qabsaday kadibna wuu dacwooday. dacwaddoosii hadda gacanta lagu hayaa go-aan lagama gaadhin. ilaa go-aan inta laga gaadhayo wuu sugayaa. marka isagu kama baqayo in la celiyo. go-aankiisaas ku xiran tahay. haddii go-aankiisa uu noqdo in la diiday mar kale kadibna la celinayo taasi waa baab kale. laakiin ilaa go-aan maxkamadi kaa soo gaadha laguma celinayo. waxbaa ka warwarina. dadka inta badan ciwaankan waxaan kasoo dhigay dadka faraha leh oo la celinayo. waa run dadka faraha leh la celinaya laakiin mar kasta su-aasha hadday su-aasha jawaabteedu tahay intaasoo keliya intaasaan idinka tegi lahaa. muuqaal idinma soo duubeen. sawir baan idin soo dhigi lahaa. ciwaana uga soo dhigi lahaa. dadka waa la celinaya dadka faraha leh. laakiin waxay u baahan tahay muhiimad. yaa la celinaya yaa faraha dadka noocee leh. taas micnaheeduna waxay tahay waxaa la celinayaa dadka faraha leh dacwadda qabsaday kadibna dacwooday doonayay in faraha laga cafiyo sharci la siiyo kadib dowladda jarmalku diiday tili waa idin celinaya celiska diyaarka oo ah ee la celinayo. dadkaasaa la celinaya. sidoo kale waxa uu jarmalku aanu ogolaanayn cid cusub oo farahay soo gasho. dadka hadday xuduudda kasoo galaan xuduudda ayaa dib looga celinaya. qofkii soo gudba ee gudaha soo gala 7 2 toddobaad ama ugu badnaan 1 bil baa dib loogu celinaya. arrinta go-aankan Sohefa ayaa sheegay laakiin dadka mucaaradka iyo wasiirro kale ayaa laftooda kasoo horjeestay. waxaa macquula inay wax isbedelaan balse markasta go-aankii hore dadka ugu horreeyay go-aankooda horta wuu hirgelaya sababta isaga shaqadiisa tahay. dadka mucaaradkana markasta muxaafidku wuxuu sheegay mucaaradku kasoo horjeestaa wax dhibaato ah ma laha taasi. marka arrin siyaasadeed u weeye. nin kastaana wuxuu dhisanayaa wejigiisa iyo siduu cod ku heli lahaa doorashada soo socota. marka hadday sababtu ka qaado xilliga doorashada lagu socdo waqtiyo badan oo kala ka badan amba ma jecli in la celiyo. dadka qaar baa si kale u turjuntay isla muxuu dadka uga nixinaya. anigu ma jecli in la celiyo. haddii la celiyo dad daawanaya waan wax u sheegi jiray uga warrami jiray dalka jarmalka ayaa iga tegaya dan iguma jirto. marka ila jooga ha tegina. su-aashaaba dadka faraha laga cafiyey. dadka faraha laga cafiyey ma la celinaya. haddii faraha laga cafiyey oo aan lagu yiri waa lagu cafiyey maxaa lagu celinaya? waa lagu cafiyey maaha dad la iska soo gurgurayo. waa dad maxkamadi diiday. haddii maxkamadda farihii kaa cafiday fara laguguma laha. waxaad tahay qof nadiif aan fara lahayn. Greegu ma ku jiraa dadka la celinayo? isagu midowga wadamada Yurub ayaa la sheegay. kale inta farta lagu fiiqay Spain iyo Talyaani baa jirta. Greega laftiisa ma hubo haddii xoga ka soo baxan insha Allah way la soo socodsiin doonaa. Belgium inaad nooga soo warantaan rabnaa. insha Allah wadamo badan oo Yurub ayaan maalinba mid ku soo dari doonaa. iminka Austria marmar waan soo qaadanaa laakiin qorshe ayaa wadnaa. waxaan doonaynaa inaanu goobaha wararka ee ugu muhiimsan wararka xaqiiqda ah ee runta ah laga soo tabiyo dalka Austria inaanu xoogga saarno soo ururino sida Jarmalka aan u garanayno meelaha wararka ugu muhiimsan laga soo helo. inaad halkaana ogaatid. Belgiumka inaad ogaatid meesha wararka ugu muhiimsan laga soo helo. Faransa inaad ogaatid kadib baad kasoo warrami kartaa. laakiin haddaad hal website ka heshid kadib halkaa website wax doona kusoo qori karaa waxaad doontid haddaad soo sheegtid dadkana ma fiicna. marka inaan markasta wararka soo xaqiijino waxa runtooda inaanu ka hadalno. sababta waan ognahay inaadna aaminsan tihiin wararkayga aad ogtihiin inay run yihiin. sidaa daraaddeed haddaanu waxaanaan hubin idin soo sheegno annagana nooma fiicna idinkana qalbiyadiina nooma fiicna. dadkii waqtigaan nagu soo xidhnaana aaminsanaa. soomaalidana waa naqaanaa. haddaad bilyan jeer wax fiican u sheegtid maalin aad website wax xun soo qoro wax xun soo dadka dhan inta ay ka arkeen xumaanta ku qoraan wanaagaaga wala tuuraya. marka muhiim maaha inta xumaan in la noo qoro dhan baan diidaynaa. saa daraadeed baan uga cararaynaa inaanu waxyaabaha qaar aanu ka hadalno ama aanu kusii tarax tagno tafaasiil yar kasii bixino.
su-aasha toddobaad, qofkii caruur ku dhalay ee aan la cafiyin sidee laga yeelayaa? walaal su-aashaasina waxay ku noqon su-aashii hore un haddii lagu celinayo waa lagu celinaya oo maxkamada go-aan kusoo gaadhay in lagu celinayo. haddaan maxkamada go-aan kusoo gaadhin dacwadaadu socoto ama lagu cafiyey waa arrin kale. haddii dacwadaadu socoto iska sug inta dacwadaadu soo baxayso, ilaahay wax khayr lah kaaga soo saaro. haddii aad dacwadaadu soo baxday lagu guri waa lagu celinayaane dee dacwad kale waa qabsan kartaa haddii xeerku ku ogol yahay inaad mar kale maxkamada ku bannaan tahay oo aad jaanis haysatid mar kale dacwad ku qabsan karta. haddii aanay ku bannaanayn tii ugu dambeysay tahayna waa tii ugu dambeysay noqonaysa. su-aal kale waxay ahayd cajiib, qofka bilaa faraha ah si fudud miya jarmalka ku iman karaa, sharci la siin karaa? dadka ugu badana jarmal jooga waa dad bilaa faraha ah, marka micnaheedu ma aha in dhammaantood ay sharciya haystaan, dhammaantood si wacan u nool yihiin. qof kasta sharciga la siinaya waxay ku xiran tahay dacwadda uu soo gudbisto, sheekadiisa, sababtuu u yimi, waxa uu doonayo iyo waxa uu dalka ku tari karo. taas ayaa sharciga loogu siinayaa. bilaan faraan ahay kadib sharciga lagu siinaya. haddaad bilaa fara tahay xaq baad u leedahay dalka jarmalka inaad ku noolaatid. hal meel ayuu kugu celin karaa markaad bilaa faraha tahay, waddankaad ka timi ee aad sheegatay oo keliya ayuu kugu celin karaa, laakiin wadamada kale Yurub kuguma celin karo. sidaa daraaddeed inta waddankaagu nabad aanu ahayn waad ku noolaanaysaa, laakiin sharci baa la siinayaa la ima siinaya. taasi waa arrin kale. sharcigu wuxuu ku xiran yahay adiga iyo qofka interviewka kaa qaaday. dadka looyarka leh diidmadana haysta maxaa ka warwareyn? su-aasha hore idinka jawaabay. dadka micnaha looyarada haysta ee diidma si khaldan buu qofkaasi u fahmay su-aashaan filayaa. wuxuu qaatay inaan ka wado qofkii looyar haysta lagu dhixtaa waa lagu celinaya, waxba ha ka warwarin. may looyar kasta haysto haddii maxkamaddu go-aanka ugu dambeysa soo gaadho oo ah in lagu celinayo, haddaad 20 looyar haysatid, looyaradaasi dacwad bay gudbiyaan. dacwadda hadday kasoo xidhanto shaqadoodu way dhammaatay, marka waxba kuma tarayso. qofka talyaaniga fiisa kusoo galaa fara miyaa ka yaalaan talyaani? horta fiisaha markuu qofka ku imanayo farahan la sheegaya waa dublinka faraha. markii qaxoontiga halkan lagu bilaabayay dadka loogu talagalay in dadka qaxoontiga ah Yurub soo gelaya lagu kantaroolo. marka haddaanad qaxoontinimo kusoo gelin kolley faraha dublinka ma yaalaan sidaan filayo haddaan khaldanayn. dad iga fiican jiraan dhanka faraha la wadaagi karaan, laakiin sidaan anigu aqaano qofka qaxoonti kusoo gala unbaa faraha qaxoontinimada laga qaada. laakiin qof fiisa ku yimaada, qof waxbarasho ku yimaada aan qaxoonti rabin inuu noqdo marna fara lagama qaado. marka fara malihid ayaan sidaan anigu aaminsanahay, laakiin kolley adigu qudhaada waad ogaan kartaa in kooxaha qaxoontiga ku qaadeen, fara lagaa soo qaaday, jirkaagoo dhan la diiwaan geliyey, la baarbaaray, howlaha dheer. qof kasta wuu dareemi karayaa in waxaan lagu sameynaya ay tahay wax ka baxsan fiisa waddan aad 7 joogay sida ka noqonaysa. waxaa jirta arrin kaloo cajiiba, bejka dadka inta badan youtube-kayga dadka igu jira arrintii waa dad nadiifa, akhlaaq badan, aan jeclahay inaan markasta la sheekaysto. haddaan life ku jiriyo haddaan muuqaal u duubayo markasta commentiyadiina ay yihiin commentiyo qurux badan dhiirigeliya. laakiin dad kale jiro marka tusaale ahaan Somali News in Germany oo kale markaan wararka soo dhigno ama pageska kale Facebooka waxaad arkaysaa dad wax iska soo qoraya aanay garanayn waxay ka hadlayaan. ama mid baa waxa aan la yaabay wuxuu yiri ciwaankaagan akhriyay, laakiin marka hore wuxuu yiri waxa sheegaysid waa been, waxba kama jiraan. gabadh baa mid kale asagoo soo cararay masuul gabadh baa soo wacday ooyeyso la wala celinaya, waran raadiyay warkii aad sheegaysay meelna kuma arag, television kuma arag, meel kale kuma arag. markay hawshu dheeraatay waxaan sii dadkan waxay sheegayaan bal u soo gabagabeeyo linkigii u soo qaad warka oo soo dhig. kuugu hor markuu eegay ayuu xoogaa akhriyay intuu ka fahmi karayo ka fahmay, kadib uu soo noqday wuxuu soo qoray ciwaanka warkaagaan akhriyay buu yiri. warkaaga madda videogaaga ma daawan, ciwaankiisaan akhriyay. ciwaankiisa iyo waxa halkan ku qorana isku mid maaha. ciwaanka haddaad akhriday warkayga kan kalena ciwaankiisa akhri, labada ciwaan waa isku mid, laakiin waxa gudaha ku jiraana waa isku mid. haddii aad kan waxa gudaha ku jira akhridid warka website-ka jarmalka ku jiray kaygana waxa gudaha ku jira akhri. marka waxa gudaha iyo waxa banaanku hadday isku mid noqdaan, tusaale ahaan waxaan ka hadlayaa oo kale mudaharaad baa dhacay. haddaan kusoo qoro mudaharaad baa dhacay,
mid website kale kusoo qoray mudaharaad baa dhacay kadib aad kii kale akhrido u dhacday mudaharaad baa ka dhacay magaalada hebla dad baa islaayay soomaali baa isfeedhay kadib aad igu soo noqotay tahayd adigu mudaharaad baa dhacay waa been mudaharaad mu dhicina dad baa islaayay oo isfeedhay dawe haya akhri ciwaankay gal gudaha akhri waxa ku jira arag kadibna i weydii su-aashaada isoo weydii markasta dhibiguma aha su-aashaada laakiin waxaan necbahay qofka siduu doono wax isaga soo qoraya ka kale gabadha ooyeysa ee wax soo weydiisayna saaxiib gabadha ooyeysa wax kusoo weydiisay waxaan sheegaya hadday af soomaali fahmayso qofku af soomaali fahmaya adiga iyaduba waxaan ka hadlaya wuu fahmi karaya qof kasta hadduu celis diyaar u ahaa dad badan baa jiro soomaalida ka mid ahoo celis diyaar u ahaa oo koronuhu kasoo galay kadib celiskoodu baaqday dadkaasi markasta diyaaradooda hore usii kacaysay imikana diyaaradooda hore loo sii saaraya wax dhibaato mala cidina wax kama qaban karto calafkooduna ilaahay halka uga qoray ayuu tegayaa oo markaasi taasi madna maaha mid qof bini aadan dhibaato ay ku tahay ama wuxuu ilaahay kuu qoran haddii norway lagugu celinayo norwaydaad ba lagugu celinaya haddii talyaani lagugu celinayo talyaani ba lagugu celinaya halku cabariiskaagu berri ka qoran yahay buu ka qoran yahay qofna dhibaato kuma aha adiguna wax dhibaa culaysaas ku saarin sababta markasta marti baynu nahay martidana hadday martidu ku soorto waa la sooraa kolba martida waad ka tegaysaa markaad waddan kale fara ku lahayd waddankii horaad mas-uuliyaddaada ay saaran tahay oo midooda yurub mas-uuliyaddaada wuxuu saaray waddanka ugu horreeya faraha kaa qaada kadib haddii waddan kale aad timaadid kadib ku aqbalo waa arrin fiican hadduu kugu dhahdo waddankii hore mas-uuliyaddaadu saareed mas-uuliyaddaada saaran tahay aad taas lafteedu isagu sharcigii ay dhigteen unbu ku socdaa marka ma rabo dadka la celinayo inaan idhahdo waa lidin celinaya waa arrin fiican maaha anaada ka jecel in maanta haddii lahahda hala joojiyo aniga la i weydiinayo waxaa odhan lahaa qof qura oo dalka jarmalka yimaado soomaaliya dib ha u celina marka maaha wax aniga ii yaalla ta kale markaad su-aali soo weydiinaysid su-aasha markasta waa soo weydii kartaa bilow ilaga dhamaad waa wax maskaxdaada ku jira waa caadi waa waxaad doonaysid inaad ogaatid laakiin markaad doonaysid inaad canaanatid markaad doonaysid inaad waxaan kuu sheegaya aad tahad waa been meel aad kasoo xigatay ma jir mid baa wuxuu wiil kaloo seeriyaan aanu ka daawanaayo markasta wuxuu noo soo qoraa halkuu ka keenay anigu dadkan wax u sheego waa dad aaminsan muhiimadda aaminaadda ayaa sheega ugu muhiimsan ah qofku haddii aad run ku baratay markasta wuxuu kuu sheegaya waa run isaga laftiisu wax beena bini aadan ma sheegi karo tusaale ahaan markaan leeyahay dad baa la celinayaa oo aan doonaya inaan been sheego ay dhahdo views ku raadsan mid baa comment baa ku raadsanaysaa markaan comment ku raadsanayo ama views ku raadsanayo ma dhahda dadka sharciyada leh baa dib loo celinaya sharciyada laga qaadaya taas oo ka fiican boqolaal baa markii madaxa isku dhifsan lahaa oo viewskayga inta jarmal joogto dhan baa daawan lahayd marka ma doonaya inaan been idiin sheego mana doonaya inaan waxaan jirin idiin sheego muhiimaddu waxay tahay waxa wasiir safa sheegay un baan anigu idiin sheegay haddaad doonaysid halka ka keenay haddaad su-aal qabtid mar kasta waad ila soo xiriiri kartaa meel kasta aad dalka jarmalka joogtid ama dunida instagramkayga iyo facebookkayga mar kasta wuu idiin furan yahay fariin kasta aad idiin soo qortaa dadka isoo qoraba og maalin kasta hadday isoo qoraan saacad gudahood baan dib ugu soo jawaaba ama wax ka yar marka waxba ha ka warwerina markasta waad ila jooga insha allah intaa wax ka badan kasii hadli mayna dadka qaar baan u qalmin waxyaabaha qaar loo sii sheego marka waad mahadsantihiin dadka ay fahmaya waxaan sheegayna fahmaya intiina kalena insha allah maalmaha kamid si wacan baan fahmi doonaa waa tahay su-aal mawduuca ugu dambeeya waa barashada luqadda jarmalka oo aad hore iisoo weydiiseen in badan aan idinku weri waan ballan baa idiin qaaday inaan arrintaasi xal ka keeni doono waan bilaabaynaa diiwaangelinta maanta laga bilaabo way bilaabmaysaa insha allah qof kasta oo doonaya inuu luqadda jarmalka isagoo gurigiisa jooga barto ayaanu diiwaan gelinaynaa wuxuu nagala soo xidhiiri karaa instagramka iyo facebooka haddaad instagramkayga aad isticmaashid waad iisoo qori kartaa waxaad isoo qoraysaa magacaaga iyo telefon numberkaaga iyo halkaad degan tahay saddexdaa shay oo qurankaaga baahanaya saddexdaa markaad iisoo qortid ayaan liiska kugu darayaa kadibna waxaa ilaa bisha dhammaadkeeda bisha 30keeda ayuu xidhmayaa diiwaangelintu casharaduna bisha kale 7koodeeda ayay insha allah sida qorshur yahay inoo bilaabmi doonaan si maalinla ah ayaad muuqaal ahaan qoraal ahaan iyo qaab kasta jeceshahay ku heli doontaa tafaasiil dheeraada iyo waxyaabaha lagaa rabo bugaagta iyo haddii qarash jiro intaba insha allah waa idiin soo bandhigi doonaa qof kastaana markuu nala soo xidho ayaanu xogta dhammaystiran siin doonaa marka haddaad u baahan tihiin facebooka axmed baqaye dhanka facebook haddaad ku qortid axmed baqaye markii uu kusoo boodaya axmed baqaye far waaweyn ku qoran sida libaaxa usoo taagan kadibna halkaasaad fariintaada iyo jawaabtaada iyo su-aalahaaga nagu soo qori kartaa
hadalka wada ku dheereeyay waqti badan baan maanta idinka qaatay insha allah waa is arag dambe oo xiise leh maalinteeda ayaynu waqti badan wada qaadan doonaa